suldaan sideed u aragtaa beelaha walaalaha ah ee wadadega deegaanka ceelaf weyn nabadeynta ay wada qaateen dhowaan? bismillahi raxmaan raxiim. runtii waa hambaliyeynaynaa waana bogaadinaynaa. waxaan halkan hambalyo balaaran uga dirayaa labada ergo ee labadii raas ee labadii reer ee beelaha Idarays iyo Baho ee iyagu gartay inay sharaftii iyo karaamadii iyo milgihii iyo sidii ay u wada noolaan jireen colaadan ka hor inay arrintoodii u xalistaan oo iyagoo habar lamaana oo aanay cidina ku dhex jirin, cidina aanay erge kaloo maanta dhex fadhida aanay jirin, inay iyagu arrintoodii galaan. runtii aad iyo aad baan ugu bogaadinayaa, u hambaliyeynayaa, waxaana ku rajoonayaa in arrintaasi guul ku dhammaan doonto. waxaana bogaadinayaa labada erge ay kala hogaaminayaan boqor Cismaan Abu Maxamuud Buurmadow iyo Suldaan Salebaan Cawil Dirir oo aan leeyahay wajzaakum allahu alkhayra, iyo odayaasha kale ee dhaqanka iyo culimaa diinka iyo ergooyinka labada beeloodba ka kooban qaybaha bulshada labada beeloodba. runtii waa hambaliyeynayaa ummadda Somaliland oo dhamina way ku faraxday. waxaana ugu ducaynaynaa in arrintaasi kusoo gabagabowdo si guul iyo gobonnimo ah. suldaan dhowaan waxaa soo cusboonaaday jabhaddii Sultaan Mubarak ee Somaliland. arrinteeda markaas sidee iyada lagu soo afjari karaa? walahi odayaashii dhaqanka ee beesha uu kasoo jeedo Wabar, Suldaan Wabar ayaa ka jawaabay oo jawaab kale wax kale oo laga daba yidhaahdaa ma habboona. waa kuwii iyagu yidhi kumanaan dooran in aad noqoto nin qaa'idul geesha oo maanta jabhad hogaamiya. markaa ama isaga ha noqoto ama aniga ha noqoto ama muwaadin kale oo reer Somaliland ha noqotay shacbiga reer Somaliland nin ka bixin kara inuu yidhaha gacanka hadal baan wax ku saxaya haba yaraatee ma jiro. markaa waxaa jawaab ugu filan odayaasha dhaqanka ee uu beesha uu kasoo jeedo ee sida sharafta iyo karaamada leh Somaliland ugu hiiliyey. runtii taasaa jawaab ku filan. waxaanan ku rajoonayaa in ama isagaba ha noqoto ama muwaadiniinta kale reer Somaliland ba ha noqoto nin kasta oo tabasho qaba isagoo Somalilander oo muwaadin oo dalka gudihiisa jooga in wixii uu tabanayo uu miiska wada hadalka la yimaado. laakiin waan jabhadaynayaa caqli ii baxaya ama isaga ha noqoto ama cid kale ha noqotay cidnaba ka iibsanaya maaha. maalmihii u dambeysay waxay bulshadu aada u hadalaysay qabsoomidda doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka Somaliland. taa lafteeda sideed u aragtaa? ma laga yaabaa in xilligeedii ay ku qabsoonto doorashooyinkaasi golayaasha deegaanka iyo baarlamaanku? marar badan horan ka hadalay runtii xilliga ay ku qabsoomaysaa ma jirto. December bay ahayd waqtigii loo muddeeyay 2019 December waynu joognaa. wadun baa inaga xiga 3 week baad inaga xiga waynu ognahay kuma qabsoomaysa taa caqli waa garanayaa. waxse muhiim ah in muddo kordhinta dambe ee kale ee imanaysa ay noqoto wax aad u kooban. axsaabtuna xisbiyada qaranku 3 xisbi qaran ay ka wada shaqeeyaan si doorasho ay u qabsoomi lahayd waayo dalka dadkaba waa u dan. markaa in si mas'uuliyad ku jirto oo xilkasnimo ay ku jirto oo turaale uu ku jiro ay uga wada shaqeeyaan dhammaantood ayumaan ku bogaabin lahaa. kolley waa saacadda inaan waqtigeedii ku qabsoomayno muddo kordhin kale ay imanayso dee taasuna inay koobnaato unbaan kolley ku baaqayna. shalay tole waxaa xilkii la wareegay taliyaha ciidanka booliiska Somaliland Maxamed Aadan Saqadhi Dabagale, taliyaha cusub ee ciidanka. sideed u aragtaa taliyaha cusub Suldaan? kolley waxa weeye dee marka uu xil banaanaado ama xaqba ha baneeyo oo dee ilaahayba dee xaqiisa ha qaato geeriya ha timaado sidii imika inagu dhacday oo kale. alan hays janaa ka warramay taliyihii hore shacbigana waa ka tacsiyadeyn horena uga tacsiyadeynay ama xilkaba madaxweynuhu wax ka qaado meesha ha banaanaatay waa qasab in la buuxiyo. arrimaha booliskuna dee kulli taliyaha booliskuna waa goobadii xasaasiyo amnigiibuu dee mas-uul ka yahay. markaa qasab ay haddii in la magacaabo magacaabista uu madaxweynuhu magacaabay taliye Maxamed Aadan Saqadhi Dabagale waa hambaliyeynayaa waana soo dhaweynaynaa. qof ahaan intaan ka aqaanana waa nin aqoon ciidanna leh kartideediina leh oo aan ku rajoweynahay inuu gudan doono xilka. waana ugu ducaynayna ilaahay ku asturo. xukuumaddana waxaan ugu baaqaynaa kulli ciidamada boolisku aqoontooda iyo noloshooda iyo qalabkooda kolba wixii la kordhin karo ee la kari karo wax ka qabashadooda iyo baahida daboolisteeda xukuumadduna inay xil weyn iska saartaan iyadana ugu baaqayaa. shacbiga Somaliland waxaan ugu baaqayaa in ciidamada booliska sidii ay horeba ula shaqeyn jireen amnigii dalkay mas-uul ka yihiin oo waa duruuf adagna way ku shaqeeyaan in iyagana ay la shaqeeyaan baa shacbigana ugu baaqayaa. markaa kulli guul baan u rajeynayaa taliyaha cusub waana hambalyeynaya waana bogaadinaya.